Assalaamu calaykum waa idin salaamay dhammaantiin meel walba caalamka joogtaan kusoo dhawaada ayaa Nuuru Cooking rabadaanka mar dhow soo dhow marka waxaan rabaa anfur yar oo fudud oo qof walba uu sameyn karo busy haday tahay oo iskuul aad dhigatid ama aad shaqaysid hooyo mashquul haddii aad tahay dhalinyaro iska mashquul ah waxaan rabaa inaan ku tuso anfur aan kaa qaadanaynin waqti badan hadduu ilaahay ka raali noqdo inaa idinla wadaagaan jeclaystay walaalayaal marka waxaa ka sameynaya insha Allah wixii hadda aad u jeediin iyo wixii ka dhiman gadaal insha Allah daawasho wanaagsan saa u sameynaa iyo waxaan ka sameeyay hadda isla arkeena marka aniga waxaan isticmaalay isticmaalay chicken steak isticmaali kartaa aniga beef steak isticmaalaya steak yani haddii aad rabtid inuu si xaleef warqad camal inuu kugu jarjarmo haddii aad rabtid freezerka geli hal saac camal ka soo bixi asigoo xoogaa adag markaas warqad camal uu kugu jarjarmaya saasuuna ku fudud yahay cunitaankiisa waxayna ku xiran tahay يعني beefka isticmaalaysid hadduu yahay mid beef waxaa la dhahaa lo'da hilibkeeda mid adag oo sac weyn mise cow oo weyn hadduu yahay mid yar hadduu yahay iyo meesha lagaaga soo geeyo ku xiran tahay adeegiisa yani waxaa fiican shafka feeraha iyo meelahaas inaa yani iiga gooy inaa dhahdid bujarka aadid kawaalaha hilibka maxaa la dhahaa steegana aad u fiican yahay iron fiican uu leeyahay dadaa cunina jiro laakiin waxaa cuni kartaa maxay ahayd chicken ka dhigan kartaa ma fahantay dooro saa u taqaanid haddana waxaan jarjaray barbarooniga gaduudka yani macaan uu leeyahay waa ogtihiin barbarooni cagaarna insha Allah waa ku dari doonaa hadda meeshaan waxaa yaalo beefkii amase steegiya meeshaan yaalo waa siisan gareynayayo waxaan ku darayaa maxaa la dhahaa cusbo yaraan ku daray filfilna waa ku darayaa waa kaasa filfish waxay u yeelaysaa ma fahanteen kuleyl yar fiican wayna fiican tahay filfisha ujeedin dhadhankeeda basbaas camal ma aha yani qof walba uu cuni karaa laab jeex ma laha waa ujeedin steega sameynaayo waxaa la dhahaa fiil steega la dhahaa anima qayd marka aada asaga lee dalbadaa waa jeclahay steeg iyo barbarooni iyo basal iyo adduunyo ya aad iyo aad ay u macaan tahay sidaa u sameynaya insha Allah daawada waxaan sameynayaa hilibka waxaa rabaa laba qayb inaan u kala shiilo waayo haddii hilibka hal mar aan ku wada shubo biyo badan uu dhalayaa mana rabo aniga hilibkeyga hilib dhayla ah waaye marka iyo karsamaya ma fahanta waqti ma iga qaadanayo biyo lagu shubayo la sugayo kan hoosta canjirka laga soo gooyo waaye kaas oo exercise ka soo dherga muscularka marka aniga markii kana isticmaalaya dhayla waaye marka biyo badan inuu dhalmo rabo asiga le inaan isku shiilaa rabaa ma fahanta saa jeceshaa sameyso adiga aad jeceshahay qof walba dooquu leeyahay marka aniga waa kala shiilayaa biyihiisa wixiisa dhan waxaa rabaa inuu haysto mafahante insha Allah adaan arki doono suu usii karsamaayo iyo sida aan u habeenayo insha Allah hadda waa kaasaa gaduudka dhan aan ka baabi'inaya markuu gaduudka ka baaba'o saxanaa ku shubaya qaybta kala soo qaadaya saasa wada sameynaa ma fahantay xataa chicken steak markuu yahay sameynaysid agogoysid ciyow karsama waxaana karsamin mataqaanaa waa hilibka markay laf ku jirto waqti dheer uu rabaa adiga ugu yaraan 30 daqiiqo inaa karisid hadduu yahay oo stoftopka ab karinaysa uu chicken uu yahay inaad dabuushid waa 30 daqiiqa aad karisid haddii uu yahay maxay ahadood arina hal saac u karsamaa waa og tahay waa kaasaa marka qaybta labaadaan ku shubay waan shiilayaa ayadana wixii seasonka aan ku daraayo dhan waa ku daray filfil iyo waxaan ku daraayo iyo cusbo bas wax kale kuma daraayo basashiya hadda dabka ku shubay basasha waan shiilayaa si fiican inay u bislaataa rabaa oo jileecay noqotaa iyadoo dhan basal cadaan ku daray basasha rabtaa ku darsan kartaa haddaa rabtid mid gaduudan ku darso haddana waxaan ku darayaa barbarooniyaashan waxaa rabtid ku darso hal qayb ku darso haddaa rabtid yani asigoo hal kalar aan ka wadaa haddaa rabtid ku darso haddaa rabtid dhowr kalar ku darso adiga saa jeceshahay waaye xoogaa aan karinayaa barbarooniga bas si fiican u kariyo waqti dheer ay karta ma fahanta tankiisa laakiin intaas waan ka yareynayaa xoogaa un baa shiilaya ma fahanta waxaa rabaa xoogaa inuu yeeshto yani goos qabsi inuu yeeshto rabaa meeshan waxaa ku jiro mayonnaise ku jiro mayonnaise waxaan ku darayaa wax yar oo toon ah hadda ku daray waxaan ku daray waa toon waxaan kale ku darayaa paprika oo shiidan paprika waxaa barbarooniga shiidan waaye daarto iska dhaafi kartaa kaas iyo waxaan kale ku daray cusbo iyo sidaan waxa ku habeenaa insha Allah aad arki doontid sababta aan u sameynayo sooskan ma fahantay waxa kale ku daraayna waxaa waaye hadda basbaas shiidan waaye hadaarto iska dhaafi kartaa ama basbaas caadi ah ku darsan kartaa haddana waxa kale ku daraaya liin dhanaan yar ku daraaya si ay u siiso yani macaan dhanaan oo caadi ahaanin fahanta hadda
sooskaas sameynaya kulligiis waa wada walaaqaya macaan ku dhahay mayonnaise saanta u sameystid waa ka helaysaa insha Allah tijaabi wax markaa sameysanaysid all purpose waxa rabtida ku cuni kartaa fahanti saasa u sameysanaysaa waa walaaqaysaa meel aad dhiganaysaa frinjeerka ku celin kartaa intii waxaa ka habaysanaysid rooti aad sameysanaysaa gurigaaga haddii aad rabtid waqti aad haysid haddii aad rabtid bakeryga tagaysaa rooti fresh ah kasoo gadanaya fahanti maxaa shaqo ku geli rootiga oo bakeryga lagu gado preservative ma laha kan suuqa bacaha ku jiro ma aha meesha freshka waxaa tagaysaa foornooyinka lagu gado rooti waxaa kasoo gadanaysaa yacni kaala araga haddii aad rabtidna xoog aad haysid iyo waqtina gurigaaga ku sameysan fahanti wakaasa waxaa marinaysaa sooska haddii aan sameynayo mayonnaise-ka aan ka sameeyey aan mariyo ujeeda sooma macaan ka dhigaya kaala arag maadaama beefkii aanan season badan aan ka badanin fahanti intaan ku daray sooska aan marinayay aan wax walba ku darin fahanti marka kulligiis saasaa u wada marinaysaa qaybta hoose oo hoos aa marinaysid rootiga hambeegarka saasaa yeelaysaa rootiga rabtida aa isticmaali kartaa adiga aad jeceshahay ma ku qasbanid kanoo kaliya inaa isticmaashid rootiga adiga aa ka heshid soo gado ama ha dheeraado ama ha wareegsanaado dhib mala kulli isku mid waaye ujeedaa hadda maxaa ku daraya waaye marka hadda waxaan ku darayaa hilibkii aan ku darayaa ujeedaa kulligiis hilibkii oo dhan aan ku wada darayaa ujeedaa kulligiis markii aan ku wada daro hilibka kadibna waxaan ku xijinayaa qudaarta kale oo aan saari lahay ama aan ku sameyn lahay aan ku shubayaa kulligood isteegii oo dhan aan hadda korka uga shubay oo bislaa aan soo sameeyey waaye marka haddana waxaan ku darayaa qudaartii hadda aan sameynayay barbarooniyaashii iyo basashi waaye kulligeed kulliba markii aan ku wada shubay haddii aad barbarooniga si yaryar u jarjari kartaa adiga aad jeceshahay yuron ma ku qasbanid inaad dheer u jarjartid sida yartaa oo sambuuska loo jarjaro maaragta camal u jarjari kartaa waxaa kaloo ku daray cheese ku daray cheese-ka kor ka saar waxaa provolone cheese la dhahaa adiga ka rabta isticmaali kartaa oo aad jeceshahay yani provolone cheese aan ku daray kadibna rootiga qaybta kale korka ka saaray kadibna waxaa marinayaa subaga marinaya saliid amarsan kartaa haddii aad rabtid subag waxaa rabaa inuu korkiisa ka dhigo yani adeeg iyo macaan dhadhan wuu ku daraya fahanti kadibna dabkaan geliyey 350 Fahrenheit mise 190 Celsius u geeyey 12 daqiiqo kadib suu kusoo baxo ujeeday macaan sandwichkan waa kasaa dhiindhiin oo kusoo baxay macaan aan ku dhahay ansalaata u sameysanaysaa iyo qudaar waxaa aad jeceshahay cabitaankaaga biyahaaga timirtaada waxaan ku dhahay dhagdhag waqtina ma kaa dhumin macaan aan ku dhahay kaala arag insha Allah saas waxoo habeys wax fudud haddii channelkayga aad ku cusubtahay oo ka heshay fiidiyoyaasheeda subscribe saar gambaleelkana fur asxaabtaadana la sheer garee meeshaas waxaa ku jiro sooska haddii aad sameynaaye waa kuu sheegay dhowr waxyaaba u isticmaali kartaa haddana waxaa u isticmaalaysaa dipping sauce oo ku daardaaran camal fahantay waa kashaa haddana waxaa idinkaga tagayaa kheyr asalaamu calaykum waa inoo next video hadduu ilaahay karaale noqdo